kusoo dhawow barnaamijka Connected Casey waad ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha sida tooska ah ugu xidhan channelkeena ama barta aan ku leenahay YouTube-ka. barnaamijka waxaan ku wadaagnaa arrimaha ganacsiga ee ka hadalka u baahan shirkooyinka saameynta leh ee ganacsiyada Soomaalida ee istaahila in la baahiyo. muuqaalka waxaan ugu talagalay dadyo kale hal-abuurka ganacsi hadda ganacsiga bilaabi raba ama ganacsiga waan bilaabay oo gacanta ku haya in fikradooda ganacsi ay noqoto mid aan si fudud loo xalin ama dadku si fudud aanay u helin ay noqoto mid ay si adag u ilaashadeen oo iyagu manfaacadsadeen maadaama hal-abuurka ay iyagu leeyihiin. qof kastoo inaga mid waxaa ku jira han ama hal-abuur ganacsi waxaase lagu kala duwan yahay sida hal-abuurkaasi looga midho dhaliyo iyo sida loo ilaashado ee loo haftiyo aanay u noqonin wax la xado ama dadyo kale siyaabo kale uga faa'iidaystaan. 4 arrimood ayaynu ku wadaagi doonaa muuqaalka dhexdiisa oon isleeyahay waxay u noqon karaan qofka hal-abuuraha ah in fikradiisu ay midho dhasho ay hir gasho dadna la arko midhaheeda. midha koowaad ka horeeyo koowaad waxay tahay fikradaada ama ganacsigaaga magac u samay. magacaad ganacsigaaga u samaysay waxa ay ka dhigan tahay in ganacsigaagu uu ka socnaado ganacsiyada kale, in loo aqoonsanaado ganacsi aad adigu leedahay oo wata magac gaar ah oo aan la mid ahayn magacyada ganacsiyada kale. waxaa lagama maarmaan noqonaysa marka aad ganacsigaaga magac u samayso inaad ogtahay magacaas inuu yahay magac isaga u gaara oo aad baadhay. haddii kale waxa kugu dhici doonta in ganacsi qof kale leeyahay aad magaciisa koriso hadhowtoolana magacaasi noqdo waxaanad adigu waxba aanad ku lahayn. qodobka labaad magacaaga diiwaangeli. si aad magacaaga u diiwaangeliso waxaad la xiriiri kartaa rugta ganacsiga ee gobolkaaga ama xafiiska wasaaradda ganacsiga oo qaabilsan diiwaangelinta shirkadaha ama ganacsiyada liisamada siiya ee gobolka aad joogto ama dalka aad adigu joogto. qodobka saddexaad ka diiwaangeli magacaaga baraha bulshada dhammaan sida Facebooka, Instagramka, Twitterka iyo kuwa la midka ah. hadda waxaynu ku jirnaa waqtigii tiknoolajiyadda. baraha bulshadu hadda waa suuq-geynta ugu weyn ee ganacsiga u isticmaalaan. marka aad ganacsigaaga baraha bulshada la wadaagto ama xayeysiis u samayso oo baraha bulshada soo geliso waxay ka dhigan tahay in qof kasta ku gaari karo goobtiisa shaqo, gurigiisa ama meel kasta oo ay dadka baraha bulshada isticmaalaan ay iyagu joogaan. qodobka afraad cidnaha la wadaagi fikradaada ganacsi. dadyogaa jira aada u qalbi wanaagsan oo dadyogu u dhow la wadaaga fikradaha ganacsi ama hal-abuurka ayagu hayaan muddo kadibna ku war hela fikradahoodii oo laga shaqaysiiyey ama cid kale isticmaashay. hal-abuurkaaga ganacsi ilaa inta uu midho dhalayo waa inuu adiga gaar ku ahaado waysan jirin cid ogaan karta. waxaa jira fikrado ganacsi way adag tahay in la hado, haddana maalin walba waxaad la kulmaysaa dadyo ka cabanaya hal-abuur ama fikrad ganacsi oo iyagu lahaayeen oo inta cid kala haday siyaabo kale uga faa'iidaysteen. 4 qodob kuma koobna qaababka loo ilaashan karayo hal-abuurnimada ama fikradda ganacsi ee uu qofku leeyahay ee aniga ayuunba aysaday 4 qodob baa ugu muhiimsan ee la wadaag daawadayaasha ku xidhan barta ama kanaalka aynu ku leenahay YouTube-ka ee Connected Casey.